السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي الهانتي ما أصحابتي مالك الدنيا كتبتين وعشان كانت جايين دعوة وضع هذا توصل كلام يسبب غسيل كوباتها فترة في الثلاثة كان بابا كان في مصر في سجن في عن سجن النوع عن بعض الخروج تعرفين لكرا في نشر جراه غادي دنبي ولكن سوق قالي وحكم إن استعفيران يعيون روح خطة تلفون ay ka wada xiriireen ayna wada hadlayeen muddo 3 saacadood ilaa 4 saacadooda qofkooda maskaxdiisa ugu horreynta waxaa kusoo dhacaya waxa weeye 4 saacadood ilaa 3 saacadood waxa lagu hadlayay waa wax weyn wax yar maaha wararka kale la sheegayna waxaa ka mid ah in cayan qurux ay kusoo wajahantay caasimadda Hargeysa oo ay Suudaansiyaal u sheegtay inay Hargeysa maanta ka imaanto dhulkeeda Soomaaliya sababaha ay ku sababaysay inay Hargeysa maanta Soomaaliya waxaa ka mid ah in ay markii fiidiyo qaldan laga duubay iyaga oo baraha bulshada aad iyo aad loo faafiyay oo la codeysanayay inantaas ayaa inantii keligeedu waxa qaaday qaaday waxaa jira isbuuq xanuunka ambasta loo yaqaan isbuuqa xanuunkaas ayaa inantii qaaday ay tiri waxaan doonayaa inaan weligay ku dejiyo ka Hargeysa xanaankan caanka ah ee gebi ahaanba geeyo Soomaaliyeed ka caanka ah sidaas guhaad ayaa sheegay in uu soo dhaweynayo abaaro 4 daqiiqo ka hor ayaa uu soo dhigay barihiisa bulshada ee ku leeyahay Facebook isagoo lahaa ayuu qurux asxaabteena soo dhaweynaysaan qofka badan xaqligiisa waxaa ku soo dhacaya sababta ay Hargeysa ku doonayso iyo sababta ay waddankeeda doonayso Soomaaliya oo sheegay inay Hargeysa maanta cayoonin 25 jeedad oo waxa kale oo uu ku daray inuu heeso soo wado si xishmad leh waxaan kaaga codsanaynaa inaad channelkan amba group-kan daadiinta warar ku soo biirto waan hubnaa oo waan ognahay inay ku soo dhaweyn doonaan bahda daadiinta wararka fadlan like saar videogana siina share